بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد walaalyaal khudbada sida aad maqlayseen khudbadu waxay ka hadlaysay munaasabadda bishan barakaysan ee ramadaan aanu ku dhex jirno iyo qof walba ee muslim ah waxaa looga baahan yahay fursaddan qaaliga ah jaaniskan ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaala jaanis iska furan ah bisha ramadaan iyo deeqdan ballaaran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu furay bishan barakaysan sidee uga faa'iidaysan karnaa deeqdan alle subxaanahu wa tacaala iyo jaa'isadan ballaaran bishan ramadaan walaalayaal innagoo ku dhex jirna qaybaheedii ugu dambeeyey gaar ahaan tobankii ugu dambeeyey ee bisha ugu khayrka badnaa innagoo ku dhex jirna nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi isbeddelka uu samayn jiray bishan ramadaan ee barakaysan wuxuu ahaa isbeddel runtii aad iyo aad u fara badan ee juhuud iyo dadaallo fara badan uu nebigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu bixi jiray liannahu qof walibaahi waxa ay shayga uga faa'iidaysantaa oo faa'iidaysiga fursadda siday uga faa'iidaysanayso qof walbaa waxay ku xidhan tahay aqoonta uu u leeyahay fursaddan qaaliga ah qofku fursadda hadduu macluumaad badan uusan ka haysanin jaaniska furan macluumaad fara badan hadduusan qofku ka haysanin aqoon dheeraada uusan u lahayn fursadduba waxay tahay waxa weeye waxaa ku adkaanaysa siduu uga faa'iidaysto maxaa yeelay shayga xaafiska ah oo qofka bini aadamka gadaal ka riixa oo shayga ku riixa inuu ka faa'iidaysto waa hadba cilmigiisa iyo aqoontiisa fursaddan inta uu leeyahay lidaalika waxa weeye qofka ummaddan khalqiga ilaahay waxaa ugu aqoon badnaa uguna khayr badnaa nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh lidaalika aqoontii nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu yiqiinay ramadaan waxa uu yahay wuxuu uga faa'iidaystay siday ahayduu nebigeennu uga faa'iidaystay sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa jiray xadiis alimaam ibnu khusayma kitaabkiisa saxiixa uu ku wariyey saxiix ibnu khusayma xadiiskaasi waxa uu ahaa waa min xadiisi ummina caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha xadiis ay warinayso ummuna caaisha waxay leedahay ummuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha kaana idaa dakhala alcashr kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala ramadaan lam ya'ti firaashah xataa yansalikh lam ya'ti firaasha xataa yansalikh waa xadiis ibnu khusayma uu saxiixiisa ku warinayo waxay leedahay ummuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha haddiiba bisha barakaysan ay dhalato ee ramadaanba uu soo galo oo bisha ramadaanba la gaaro firaashka nebiga sala allahu calayhi wasalama jilacsan iyo joodariyaasha nebigu kuma seexan jirin firaashyada jilacsan wuu iska ilaalin jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam xataa yansalikh ilaa ramadaanku uu ka dhammaado ramadaanka ilaa uu ka dhammaado nebigeenna sala allahu calayhi wasalam meelaha jirka u roon meelaha raaxada ah ee hurdada soo jiidaysa oo naftu ay jeceshahay oo hurdo fara badan iyo wakhti badan qofku inuu ku jiifto keenaysa uu ka fogaan jiray nebigeenna sala allahu calayhi wasalam lam ya'ti firaashah waa riwaayatu ibnu khusayma fii saxiixihi firaashkiisa maba iman jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam meelaha naftu ay jeceshahay wuu ka fogaan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam xataa yansalikh ilaa ramadaan uu ka dhammaado ramadaan ilaa uu ka dhammaado waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalama uu hirgelinay oo uu ku dhaqmayey qowlka ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa طamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum min qurati acyun jazaءan bima kaanuu yacmaluun waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala hadyiga iyo ficilka noocaas oo kale ah qofka sameeya aayaddaasuu ilaahay ku ammaanay oo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dadka wanaagsan ee waxa ramadaan uu yahay garanay
وآخر يقانا تتجافى جنوبهم عن المضاجع dhinacyadoodu way ka fogaataan meelaha raaxada leh oo la jiifanay maxay sameynayaan yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca rabbigooday caabudayaan iyagoo ka baqaya cadaabkii qabriga cadaabkii qiyaamaha cadaabkii aakhiro iyo cuquubada iyo carada ilaahay ka baqay wa tamaca ayagoo damacna ku jiro hunguriyeynaya inay dadka ahluljanno ay ka mid noqdaan damac uga jiro waxay damcayaan oo ay rajaynayaan an yakuunuu min ahli اljanna in ahluljannada ay ka mid noqdaan ayay rajaynayaan labada arrimood ay rabbigooda ay u caabudayaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun ilaahay wuxuu yidhi dadkaa waxa loo qariyey oo aan u kaydeeyey cid ogi ma jirtuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala kaydaan dadka sidaan nafsadooda ula dagaalamay ee ridahayga raadinaya kaydaan u qariyuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kayd ayaan u qariyey falaa taclamu nafsun naf og ma jirto maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey min qurati acyun oo indhahoodu ay ku qabowsanayaan wax farxad gelin doona ayaan u qariyo maalinta adduunka ay ka dhintaan ayaa sanduuqaas loo furi markii qabriga loo sii wado xabaalaha loo sii wado kaydkii loo qariyey maalintaasaa sanduuqa loo furahay wixii loo qariyo loo kaydiyey maalinta janaasadooda la sii wado maalintaasaa loo furahayaa daah looga qaadayo markay saacadahan yarka ah ee adduunka ay ku nool yihiin saacadahani ay dhammaadaan oo adduunyadan dhalanteedka ay ka tagaan markaas weeye marka loo furayo wixii loo qariyey markaas ayaa sanduuqii loo furahay waa marka nebigeenu salى اllahu عalayه wasalam uu leeyahay qofkaas marka qabriga loo sii wado wuxuu leeyahay cajiluunii cajiluunii sida bukhaari saxiixiisa uu ku warinayo war idedejiya wixii la ii qariyey ayaa lay tusayo idedejiya oo qabriga idedejiya waxaa la dheeraanaysa saacadaha qabriga loo sii wado ayaa waxay la noqonaysaa saacado aad u dheer wuxuu jeclaysan in ilbiriqsi qabrigiisa lagu geeyo si uu markaa u helo wixii ilaahay uu ku martiqaadi lahaa subxaanahu wa tacaala maadaama adduunkan inta uu joogay juhdi iyo dadaal badan uu sameeyey shahawaadka nafta iyo dhalanteedka adduunyada iyo waxyaalaha macaasida iyo shahawaadka naftu jeceshahay uu ilaahay dartii uga celiyey ilaahay dartii uu naftiisa uga celiyey waxyaalaha naftu jeceshahay ee dembiga iyo macaasida iyo dhalanteedka iyo waxyaalaha malayacniga ayuu ka celin jiray falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahu min qurati acyun jazaءa bima kaanuu yacmaluun amaa qofka ramadaanka aan ka faa'iidaysanin oo inuu ramadaan dhashaba aan ogeynba oo bilihii 11kii aanu soo marnay bilood aysan waxba uga duwanayn wax tilaaba aan hore u qaadaynin wax isbeddela aan wakhtigiisa ku samaynaynin wax isbeddela aan ku samaynaynin hurdadii intii saacadood uu hurdi jiray unbuu hurdaa 11kii bilood intuu hurdi jiruu hurdaa maalihii munkarkii iyo maalayacnigii iyo lahwigii siduu u fadhiisan jiray ayuu weli u fadhiyaa khafladii iyo sidii uu u qunfulnaan jiray oo shayddaanku uu qunful ugu jebiyey sidii uu isaga qunfulan yahay wax isbeddela ma uusan samaynin qofkaasi waxa weeye waa qofka uu ku tilmaamay nebigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi markuu adduunyada ka tegayo inuu shallaayayo qabriga loo sii wado oo uu leeyahay yaa weylaha ayna tadhabuuna bihaa halaaga igu dhacaya xaggee ii wadaanuu leeyahy markii la tuso qabrigiisa naartii iyo cuquubadii iyo beeraha naarta ka mida iyo godgodadka naarta ka mida in qabrigiisi looga dhigay markaas way markuu calaacalayo oo uu leeyahay yaa weylaha ayna tadhabuuna bihaa war halaaga igu dhacaye haddaad ogaan lahaydeen meesha aad ii wadaan gurigaba igama saarteen ayuu leeyahy marka waxaa loo baahan yahay bishan ramadaan qofba aqoonta ay leedahay inta ay ka taqaano ramadaan ayaa qof walibaahi ay ka faa'iidaysataa ramadaan waa fursad qaali ah rubamaa laa tudrik fi اlcaami alqaadim waxaa dhici karta sanadka soo socda fursaddan inaadan gaarin arrinkaasna waxaad haysaa tusaalooyin fara badan oo maskaxdaada iyo maankaaga ku jira ayaad haysaa haddaad ka faa'iidaysanayso tusaalooyinka maskaxdaada ku jira waxaa maskaxdaada ka buuxa oo ku jira dad badan oo ramadaankii hore nala joogay haddana aakhiro aaday oo ramadaankan aan gaarin
ayaa qof walba u yaqaanaa inteenan masjidka fadhisa inteenan masjidka fadhisa tusaalooyinka maskaxdiisa way uga jiraan laakiin cidda ka faa'iidaysanaysaa yar waxaa maskaxdaada ku duuban shakhsiyaad fara badan oo saaxiibo aad ahaydeen deris aad ahaydeen qaraabo aad ahaydeen ramadaankii hore nala cibaadaystay haddana dunidaba aan jooginba oo ahlulqubuura maxaad uga duwan tahay adigana waxaa laga yaabaa dadkaas liiskoodii inaad ku jirto dadkaa liiskoodii inaad ku jirto adduunyada laga wadayo oo ramadaanka soo socda aadan gaaraynin ayaa dhici karta waana laga yaabaa intaanan masaajidka hadda ku jirtaa inay naga mid yihiin shakhsiyaad sidaas oo kale maxaa yeeley ummad intan la eg oo meeshan isugu timid maba laga weyn karaba dad yacni sanadka soo socda aan gaaraynin lagama weyn karo ummad cadadkeeda tiradooda intan la eg laa shak walidaalika marka qof walbow maskaxdaada ku duub inaad qofkaa ka mid noqon doonto ramadaanka soo socda aan gaaraynin una labiso una diyaar garow sida aad ramadaankan uga faa'iidaysan lahayd oo maskaxdaada iyo maankaaga iyo muruqaagaba isugu gee oo maskaxdaada ka dhaadhacsii waxaa dhici karta inaadan gaari doonin fursaddan oo kale waxaa dhici karta fursaddan oo kale inaysan dib kuu soo mari doonin sidaas oo kale u cibaadayso oo uga faa'iidayso ramadaan waa nicmo qaali ah waxaa jiray xadiis imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey oo nabigeena salى اllahu waslama wbaaraka calayhi xilligiisii ana rajulayni min qudaaca aslama fii cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam xilligii nabigeena salى اllahu calayhi wasalam ayaa waxaa soo islaamay laba nin oo ka mid ahaa qabiil carabta qabaa'ilkeeda ka mid ahaa oo la dhihi jiray qudaaca qabiilkaa qudaaca laba ninaa ka soo islaamtay xilligii nabigeena salى اllahu calayhi wasalam labadaa nin markay diinta islaamka ay ku soo biireen midkood jihaadkii ugu horreeyey ayuu ku geeriyooday oo uu ku shahiidoobay jihaadkii ugu horreeyaba wuu dhintay ramadaankii maba gaarinba fursad ma helin ramadaankii uu gaaro kii kaloo saaxiibkiisa ahaa hal san uu ka dambeeyo wuxuu gaaray ramadaankii uu gaaray ka bacdi ramadaankii markuu dhammaystay saaxiibkiina wuu dhintay oo wuu geeriyooday labadii nin waxaa ru'yo ku arkay sida imaamu axmed uu kitaabkiisa xadiiska ah ee musnadka ku warinayo dalxatu bnu cubaydillaahi alansaari ayaa ru'yo ku arkay oo ilaahay uu ku tusay labadii nin maqaamkoodu sida uu yahay jannada kii jihaadka ku geeriyooday oo ramadaanka aan soo gaarinin wuxuu arkay isagoo dabaq oo leebel ka hooseeya midkii ramadaanka soo gaaray inuu sarreeyo oo xagga jannada darajaadkeeda uu ku sarreeyo kii hal sano ka hor dhintana uu ka hooseeyo laakiin labadooduba ay ahlujanno noqdeen labadooduba ahlujanno ay noqdeen laakiin midkii ramadaanka gaaray uu ka murtabo sarreeyo oo uu ka mustawo sarreeyo kii ramadaanka aan soo gaarin dalxatu bnu cubaydillaahi alansaari qisadaasuu nabiga u sheegay salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waxaan la yaaban oo arkay labadii nin oo saaxiibada ahayoo dhintay oo midkoodna uu ramadaanka soo gaaray midna uusan ramadaanka gaarin waxaan arkay kii ramadaanka soo gaaray oo ka darajo sarreeya jannada labadoodii jannaday ku wada jiraan laakiin kii ramadaanka gaaray ayaa saaxiibkii ka darajo sarreeya nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi wuxuu yidhi liأnnahu adraka ramadaana bacdah wasallaa kada wa kada salaatan bacdah liannahu ninkani waxaa lagu dallacsiiyey ramadaanuu soo gaaruu yidhi nebigu salى اllahu calayh wasalam wuuna ka faa'iidaystay oo ramadaan sidii ay ahayd ayuu kani uga faa'iidaystay kii hore laakiin bil ramadaanba weligii ma arkinba waa dhintay fursaddaa isagoon gaarin ayuu kii kale dhintay wasallaa kada wa kada salaatan bacdah intaasoo kun oo salaadoodna sanadkaa gudaheeda uu ku tukaduu yidhi nebigu salى اllahu calayh wasalam marka fursaddii ilaahay sanadkaa uu siiyey oo uu nooleeyey iyo fursadda ramadaanka uu ka faa'iidaystay ayaa xoogaa looga darajo sarraysiiyey kii kale jannada uu uga saro maray yuu yidhi nebigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh marka ramadaan gaariddiisu sidaasay tahay nicmo qaali ay u tahay qofka muuminka ah liannahu qofka gaara ramadaan wuu ka khayr badan yaho ka faa'iidaysta qofka ramadaan aan gaarin wuu ka mustawo sarreeyaa wuuna ka heer sarreeyaa mar walbaba xataa haddii ay jannada ay isla galaan dhammaantood ramadaan walaalayaal fursaddan oo kale saxaabadii nebigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh waxay qiimayn jireen fursadaha qaaliga ah
waxay gaadi jireen meelaha laga helayo ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala waxay u kala tartami jireen meelaha ay ka furan yihiin fursadaha qaaliga ah ayay u kala tartami jireen saxaabatu rasuulillaah sala allahu wasalam wabaaraka calayh mid ka mida saxaabada haddii fursaddaasu ay dhaaftana wuxuu ku shallaayi jiray oo uu ballan ku qaadi jiray fursadda kale haddii ilaahay gaarsiiyo inuu ka faa'iidaysan doono waxaa jiri jiray saxaabi la dhihi jiray anas bnu nadri radia allahu tacaala canhu wa ardaah saxaabigaas waxa uu dhaafay dagaalkii ghaswatu beder dagaalkii beder kama qayb gelin way dhaaftay ghaswadaas ka bacdi marka wuxuu maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ka sheekaynaya dadkii ahlulbeder waxa ay gaareen oo khayraad iyo naciim iyo ilaahay ridihiisa iyo darajaadka ay gaareen nabigoo ka sheekaynayuu maqlay sala allahu calayhi wasalam oo dhahaya wamaa adraaka ana allaha iطalaca calayhim faqaala icmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum maxaad ka taqaanaa ahlulbeder in ilaahay yidhi wax walba ood samayseen oo dembi ah waa idin dembi dhaafay maadaama dagaalkii beder aad ka qayb gasheen fadaa'ilka iyo nicmadaasuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi sida imaamu albukhaari uu saxiixiisa ku warinayo lain illaahu ashhadanii qitaala almushrikiin layarayanna allaahu maa asnac wuxuu yidhi haddii ilaahayba i gaarsiiyo fursad kale waa dagaalka soo socday uxud oo dhici doona sanadka saddexaad kii beder sanadkii labaad uu dhacay uxudna wuxuu dhacay sanadkii saddexaad ee taariikha hijriga dagaal kale haddii ilaahay iga qayb geliyo oo fursaddaaba ilaahay i gaarsiiyo layarayanna allaahu maa asnac ilaahay wuxuu arki doonaa buu yidhi waxa aan sameeyo fursaddaa waxa saan uga faa'iidaysto ilaahay wuu arki doonaa subxaanahu wa tacaala anas bnu nadri fursaddiiyaa ilaahay gaarsiiyey dagaalkii uxud ayuu gaaray markii saxaabada inta badan goobtii ay ka baxsadeen ay ka carareen wuxuu ka mid ahaa dadkii farakutirirska ahaa oo goobta dagaalka ku sugnaaday liannahu sanadkii hore ayuu ilaahay ka ballan qaaday in mar walbaba fursaddan haddii ilaahay gaarsiiyo uu ka faa'iidaysan doono dagaalkii gaaladu iska dhex galay anas bnu nadri gaalo badan markuu laayey ka bacdi isagana waa la dilay anas bnu nadri bal xataa cadowgii gaalada jirhkiisii way googooyeen oo way jarjareen famaa carafahu axadun ilaa ukhtuhu bibanaani qof garatay jirhkiisii iyo muuqaalkiisii waa la waayey ilaa walaashii uunbaa fahamtay inuu yahay anas bnu nadri waxay ku garatay farihiisii calaamad ku yiilay ayay ku fahamtay in walaalkii uu yahay anas bnu nadri idan marka saxaabigaas ilaahay wuu ammaanay saxaabigaa yidhi fursad kale haddii ilaahay soo marsiiyo waan ka faa'iidaysan kana faa'iidaystay ilaahay wuu ammaano aayaduu ilaahay ku soo dejiye oo ilaahay wuxuu yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala mu'miniinta ragaa ka mid ah ilaahay ballan ka qaaday ballankiina oofiyey oo ballankii aan waxba ka beddelin waxaa ka mid ahaa anas bnu nadri oo yidhi fursaddaaba haddii ilaahay i gaarsiiyo ilaahay wuu arki doonaa waxa aan dhigo idan marka qof walba muslima waxaa loo baahan yahay waatan ramadaan ilaahayna wuu ku gaarsiiyey dad badanaan ilaahay gaarsiinin ood garanayso oo ahlulqubuur oo ahlulaakhira ah ilaahay wuu ku keenay fursaddii waadna dhex taagan tahay ilaahay ha arko sidaad yeesho ilaahay ha arko sidaad uga faa'iidaysato sida saxaabiga anas bnu nadriba uu yidhi ilaahay wuu arki doonaa midaan dhigo marka waxaa loo baahan yahay qof walba ee muslim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fursaddan uu gaarsiiyey oo fursaddan uu ugu deeqay waa nicmo qaaliya amaama allaahina waa lagaa weydiin doonaa fursaddan iyo jaaniskan waa lagu weydiin doonaa dad badanaad garanaysaan fursaddan qaaliga aan soo gaarin oo dhintay dad badanaad garanaysaan oo sariiraha jiifa oo xataa aan awood u lahayn inay masjidka ay yimaadaan oy soo socdaan xanuunnahaya awgood waa qof walaalka muslima adiga kula mid ah fursadii u diiday caafimaadkii u diiday inuu ramadaan ka faa'iidaysto ilaahay adiga caafimaad uu ku siiyey wuu ku nooleeyey lixaadkaagii iyo jirhkaagii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad kuu siiyey waa lagaa weydiin doonaa caafimaadkaas bal sida aad jaaniskan uga faa'iidaysato waxbaa lagaa weydiin doonaa waxaa kaloo jira dad badan oo masoomayaal ah oo iyaguna dariiqyada iska marayo shayddaanku uu qunfulay
shaydaankuba uu halmaansiyey wax ramadaan uu yahaba aan garanayn xataa aan soomaynba xataa aan soomayn kaa awood badan kaa muruq badan kaa caafimaad badan oo masoomayaalaha jira iyagana oo ilaahay uusan waafajin inay soomaanba inay fursaddan iyo xataa xeradii ay soo dhex galaanba shaydaanku uu diiday adiga ilaahay shaydaanka uu kaa xafiday wuxuu ku siiyey fursadaad uga faa'iidaysato bisha ramadaan ilaahay wax badan uga mahad celi masoomayaashaasna aan kugu derin shaydaanku dariiqyada uu ku qunfulay shaydaanku uu raaxo dhalanteeda ka tusay macaasida iyo dembiga iyo wax maalayacniga ay ku jiraan ayaa shaydaanku wuxuu uga dhex furay filin uu ka dhex tusay filinkaasi wuxuu ka demi doonaa markii naftu ay ka baxdo markaasaa filinku wuxuu isku beddeli doonaa jaxiimuu isku beddeli doonaa naar jaxiimo ah waxaa la soo hordhigi doonaa qabrigiisii oo naartii jaxiimo laga dhigay markaasaa la dhihi doonaa waa kan meesha aad u socoto xilligaasuu waagu ku baryi doonaa xilli uusan jaanis u haysanin inuu faa'iidaysto xilli uusan jaanis u haysan wakhtina uusan haysan hal daqiiqana aan la sugaynin in dib loo celiyo hal daqiiqo in wakhtigiisa loogu darana ilaahay uusan ka yeelaynin walan yu'akhir allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nafta wakhtigeedu hadduu dhammaado ilaahay wax yarna dib u dhigi maayo wax yarna dib u dhigi maayo addoonkii ilaahay oo ogaaw daqiiqado yar maalmo yar ee tirsan ayaa dunidan ku noosha maalmihiina way isgureene intooda badanba way kaa tageen ama ka faa'iidaysatay ama ha ka faa'iidaysane maalmihii inta badanna waad soo cuntay way kaa tageen waxa kuu haray oo wax yar woy waxa kuu haray waxaa yarka ahee kuu haray yuusan kaa garaad badinin yuusan kaa caqli badinin shaydaan yuusan xisbigiisa iyo kooxdiisa kugu darin shaydaanku mar walbaba taageerayaaluu raadinahay xisbiyaa u furan xisbi ayaa u furan oo la yidhaaho xisbu shaydaan alaa ina xisba shayطaani hum اlkhaasiruun kooxda xisbiga shaydaanku waa kuwa khasaari doonuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kuna dhex jira khasaarada ku dhex jira xisbigaa shaydaanku yuusan dhibca kugu raadsanin uusan kooxdiisa kugu darsanin ee ka mid noqo xisbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala adeeca qaafilatu nuur ku soo bir qaafiladda nuurka iyo daacada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo ridihiisa saacad walba u taagan inay raadiyaan kooxdaa ku soo biir oo iska ilaali xisbiga shaydaanku uu ku dhibca badsanayo nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wuxuu inoogu bishaareeyey xadiiskii ibnu xibbaan uu warinayo imaamu tirmidi isaguna jaamiciisa uu ku warinayay wuxuu inoogu bishaareeyey nabigu salى اllahu calayh wasalam habeen kasta oo habeennada ramadaanka ka mid ah in ay socoto jaa'iza abaalmarintaasi maxay tahay waa cidqun min annaar nabiga salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi yactiqu اllahu fii kulli laylatin walilaahi cutaqaa min annaar wadalika fii kulli laylatin min layaali ramadaan nabiga salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi habeen walbee habeennada ramadaanka ka mid ah ilaahay jamaacaad fara badan ayuu naarta ilaahay ka xoreeya naartuu ilaahay ka xoreeyaa markaasaa lagu qoraa diiwaanka ahluljannaha ah nas'alu اllaha tacaala an yajcalanaa minhum waxaan ilaahay weydiisanaynaa ilahay inuusan nagu qadin jaa'isada iyo abaalmarinada shubmaya iyo barakaadka iyo nafaxaadka iyo raxamaadka da'aya ilaahay naguma qadiyo subxaanahu wa tacaala waxaa halaagsamay oo ayaan darro ah 29kii xorayntu ay socotay ama 30kii habeen oo habeen walba xorayntu ay socotay hal habeenna inaan lagugu derin waa nasiib darro ilaahay naguma daro kuwa nasiib darrada ku dhacday habeenkii bilowgii kama mid noqon jamaacada naarta laga xoraynayey habeenkii ugu dembeeyana kama adan mid noqon habeennadii dhexda ku jirana laguguma derin liiskii alcutaqaa min annaar laguguma derin waa ayaan darro zaa'ida waa nasiib darro zaa'ida lianna waxaa weeye naar sideedaba qur-aanku wuxuu tilmaamay naar yaa gala laa yaslaahaa ila alashqaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay naarta waxa gala qof nasiib daran qof ayaan daran unbaa gala laba qof unbaa naarta gala waxa gala khifatu اlcaqli waashaqaawa labadaa qof unbaa gelayo qof caqligiisa iyo maankiisu gaaban yahay qof maankiisu gaaban yahay iyo
qof ayaan darro ku dhacday leannahu qofka maankiisu gaaban yahay muxuu yahay caawa bisuu ka fekeraa dembigan gal caawa gal berri kama fekero war berri amaad dhimataa oo lagula xisaabtamaa war qabri sow berri ma jiro war sow ma jiro aakhiro war sow diiwaan lagaa qori maayo berri liiskaga uma qora berri liiskaga uma qoree saacaddan iyo lugihiisa hoostiisa bisuu maankiisa iyo caqligiisu la egya qofkaasaa naarta gelaya berri waxay tahaba maskaxda uguma jirto dhimasho waxay tahay waxa ka dambeeya qabri wuxuu yahay diiwaankiisa kuma qorraba qaamuuskiisa kuma qorra lagama helayo qaamuuskiisa haddii la rogrogo wax berri la yidhaah wuxuu u furan uun maanta iyo saacaddan bes waa maangaabnimo wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa kaana linafsin an tu'mina ila biidni اllah wayajcalu rijsa calى aladiina laa yacqiluun ilaahay wuxuu leeyahay wayajcalu rijsa calى aladiina laa yacqiluun ilaahay wuxuu ciqaabaa oo cuquubada uu yeelaa calى aladiina laa yacqiluun kuwa aan caqliga lahayn kuwa maankooda uu yar yahay oo berri aan ka fekerin kuwaas un baa naar gala laakiin inta berri ka fekerta naar way ka badbaadaan walciyaadu billah inta berri maxaa dhici doona war berri amay wax isbedeli karaan cidda yacni maskaxdooda ay ku jirto kuwaas naarta way ka badbaadaan idan marka labadaas sababaa naar lagu galaaho qofka maankiisa ee caqligiisa oo yaraada oo berriba uusan liiska ugu qornayn iyo qof ayaan darro ku dhacday oo nasiib darro ay ku dhacday qofka labadaas qof unbaa naar gala sida qur'aanku uu inoo tilmaamay marka nebigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku bishaareeyey in habeen walba ee habeennada ramadaanka ka mida xorayntaas ay socoto waxaa marka aanu isku baraarujinaynaa mar walbaba maadaama aanu soo galnay tobankii ugu dambeeyey ee ramadaan sidee uu ahaan jiray dhaqanka nebigeennu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh tobankan dambe markii la gaaro muxuu samayn jiray nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa inooga hadlaysa umunaa caaisha xadiiskii ay warinayeen bukhaari iyo muslim labadoodaba kaana idaa dakhala alcashru shadda mi'zarah wa ayqada ahlah wa axya alleyla kullah umunaa caaisha waxay leedahay tobanka dambe haddii la gaaro nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh dhexduu xidhan jiray xadiis kale umunaa caaisha waxay ku tidhi yejtahidu fi اlcashri اlawaakhir maa laa yejtahidu fii gayrih tobanka dambe nebiga salى اllahu calayh wasalam dadaal wuxuu bixin jiray uusan labaatankii hore soo bixin labaatankii horena wuu dadaali jiray laakiin tobanka dambena ziyaaduu ku dari jiray nebiga salى اllahu calayh wasalam idan marka waxaa loo baahan yahay addoonkii labaatankii hore ramadaan dadaal soo bixiyey dadaalkiisii inuu wax ku daro walow hal tilaabba allaha ka dhigo waxuun ku dar tobanka ziyaada ah haddii qur'aanka labaatankii hore aad ka akhriyi jirtay 4 juz haddaad akhriyi jirtay 5 ka dhig tobankan darteed wax uun ziyaade hal tilaabba allah ka dhigo ilaa nebiga salى اllahu calayh wasalam dhaqankiisa wuxuu ahaan jiray yejtahidu fi اlcashri اlawaakhir maa laa yejtahid fii gayrihi dadaal labaatankii hore uusan bixin ayuu ka bixin jiray tobankoo waxbuu ku dari jiray dadaalkiisa nebigu salى اllahu calayh wasalam haddii habeenkii 9 saacad soo toosi jirtay hal saac hormariyo yacni tilaab hore u qaado 8 saac ka dhigo haddaad 8 saac soo toosi jirtay 7 saac ka dhigo haddaad 7 saac soo toosi jirtay 6 saac soo kac wax uun tobankan waxaa loo baahan yahay hal tilaabba allah ka dhigee horey aan u soconno hal tilaabba allah ka dhigo umuna caaisha waxay leedahay shadda mi'zara dhexduu nabigu xidhan jiray salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuu dadaali jiray wa ayqada ahlah xaaskiisa iyo carruurtiisana nebigu hurdaduu ka toosin jiray salى اllahu calayh wasalam idan waxaa loo baahan yahay qof walba inuu xaaskiisa ay isku kaalmaystaan cibaadada ilaahay daacada ilaahay in la ysku kaalmaysto ayaa loo baahan yahay leanna waxa weeye haddii maantay la dhihi lahaa war meeshan deeqa laga qaybinahayo lacag deeqa ayaa socota oo la qaybinahaya 7 saac habeennimo lacagaa la qaybinahayaa soo baxa ha laga faa'iidaysto qof walbana waa helaysaa deeqda oo 7 saac habeennimo soo toosta imisaa soo toosi lahayd imisaas hurdi lahayd ya waa lacag oon wax qiimaa lahayn ood ka dhimanayso oo waxa aad la sii soconaysaaba wakhti kooban ay tahay waxaad isi haynaysaan lacagta imisaad isi hayn kartaan waa daqiiqado iyo saacad kooban intaad isla joogaysaan lacag
toddoba saac habeennimo ayaa bangigaas ka furan tahay oo deeq lacageed ka socotaa qof seexata lama arkeen balse iyaysan igafina qof walba uu dhihi lahaa waa la soo taagnaan lahaa qofkii hurdana saaxiibkiisu hurdada ka kicin lahaa hurdaduu ka jafi lahaa hurdada ayuu ka jafi lahaa uu ka toosin lahaa leanna waxa weeye wax walba dadku tusaalehay wax ku fahmaan hadda ka horaa waxaa jiray nina wuxuu ugu yidhi dibadaha ka yimid ayaan sheekaysannay markaasuu waxaan ka sheekaysannay carruurta iyo dhalmada iyo arrimahaas markaasuu wuxuu ugu yidhi sheekhow adiga carruurtaada way badan yihiin uu yidhi anigu igu leeyahay shaksiya laakiin anigu laba carruur bisaan dhalay uu yidhi laba carruur bis waxaana ka baqahayaa midka saddexaad ayaan ka baqahayaa dhalashadiisa markaasaan waxaan ku yidhi war adinka xagga markaad joogtaan sow carruurta cayr kuma qaadataan qofkii carruurta cayr ku qaata hadduu carruur saddexaad u soo kordho ama mid afaraad uu u dhasho muraalkiinu see wey waan ku faraxnaa yidhi aadaan ugu faraxnaa qofka uu ka carruur badan yahay waa ka cayr badan yahay lacag badan u qaataa markaasaan waxaan ku yidhi war aniguna carruurtan badan ilaahay aan cayr uga dalbiyaan yidhi oo waan ku farxayaa carruurkii ii soo dhashaba akoonkayga risqigaa sii siyaadaya ilaah wax uga qaadanaya subxaanahu wa tacaala ninkii wuu aamuso wuxuu yidhi bis wey waa run wey dee leanna waxaan fahmaynaa makhluuqa cayrta uu ku siinayo laakiin ilaahay akoonkiisa ma fahmayno waxa akoonka ilaahay kaaga furmayo qofkii kuu siyaadaba oo dhashaba risqigiisa ula dhalanahay akoon waa lagugu siyaadinahay oo laguu furahay idan marka waxaa weeye haddii la dhihi lahaa qof walba 7 saac habeennimo haddii bangiga abaalmarina ka furan oo lacagaa laysisiin waan iskicin lahayn waan isbaraarujin lahayn waan istoosin lahayn idan marka nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu inoo tilmaamay in akoonkii ilaahay uu furan yahay in abaalmarintii ilaahay ay furan tahay oo ilaahay uu sii siyaadinayo ajirka iyo khayrka iyo abaalmarinta uu bixinayo 10ka ugu dambaysa ilaahay uu sii siyaadinayo waxyaalaha cajaa'ib kale waxaa ka mid a soomaalida lamaanaha isqaba waxay isku toosiyaan islaantu ninkeeda way u toosisaa dhalada caanaa oo waxay tiraa dhaladeedii caanaa waad ka hurdayey wartoos dhalada caanaa waa la isku toosiyaa laakiin salaatuleylka la iskuma toosiyo marka waxaad mooddaa uun in xataa qiyaamuleylkii aakhiradii agteenna aysan miisaan ku dhammayn dhala caana ah war dhala caana ah miisaankeedii xataa inaysan ku dhammayn labada ragcoo qiyaamuleylka ah leanna waan fahmaynaa in caanaha la ysku toosiyo cashada la ysku toosiyo laakiin ma fahmayno in la ysku toosiyo daacada ilaahay oo haweenaydu ninkeeda ay tiraa war daacadii waad ka hurudday oo ninku uu xaaskiisa ku yidhaaho war daacadii ilaahay waad ka hurudday maxaa kugu dhacay ma fahmi karno taas ma fahmi karno laakiin dhalada caanaa waan fahmaynaa in la ysku toosiyo cashada in la ysku kiciyo waan fahmaynaa qaarkoodna dhallinyaradu waxayba isku toosiyaan musalsalaadka iyo filimada saacadaha ay soo galaan isku kiciyaan oo waxay yidhahaan filimkii hebelaa ku jiree war ma hurdaysaa saaxiibo hurdada ka kac waxay nagu tahay ceeb iyo cambaar iyo magaxumo iyo maaragta ihaanay nagu tahay in filimadii la ysku toosinayo musalsalaadkii la ysku toosinayo dhaladii caanaha la ysku toosinayo laakiin aan la ysku toosinaynin in laga faa'iidaysto abaalmarinta iyo deeqda ilaahay uu furayo 10kan ugu dambeeya ramadaan walidaalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam ummuna caaisha waxay leedahay wa ayqada ahlah ahaladiisuu nabigu toosi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh xaaskiisa iyo carruurtiisa ayuu nabigu sala allahu calayh wasalam uu toosin jiray 10kan ugu dambeeya ee ramadaan wa axya alleyla kullah habeenkoo dhanna wuu soo jeedi jiray 10ka ugu dambeeya nabigu ma seexan jirin sala allahu wasalam wabaaraka calayh maalintii unbuu nabigu sala allahu calayh wasalam dhowr saacadood uu ka jiifan jiray oo uu ka qayluusan jiray nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh amaa 10kan haddiiba la gaaro hurdada 10kaa habeen nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ma uusan hurdi jirin waa soo jeedi jiray idan marka acmaasha nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi 10kan ugu dambeeya uu ku noolayn jiray waxaa ka mid ahaa alictikaaf fi lmasjid nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh kaana yactakif fi lcashri alawaakhir min ramadaan 10ka ugu dambeeya ee ramadaanka ka mida masaajidka kama bixi jirin nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxyaalaha lagu noolaynayo 10kan ugu dambeeya waxaa ka mid ah ictikaafka haddii ictikaafkii masaajidkii aad awoodi weyso habeen iyo maalin inaad 10ka ugu dambeeya masjidkii aadan ka bixin waa sida ugu wanaagsan waa sida ugu ajir badan waa sida sunnada nabigeennu ahaa jirtay sala allahu wasalam wabaaraka calayh haddaad intaa awoodi weyso walba maalintii uun masjidka ha ka bixin
habeenkii haddaad ka baxayso maalintii masjidka ha ka bixin oo ku ictikaaf liannahu ictikaafku waa cibaado weyn oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala garaado iyo dallacsiin iyo dembi dhaaf ilaahay agtiisa looga helayo subxaanahu wa tacaala maalintii oo dhan haddaad awoodi weyso ictikaafka inaad samayso wakhtiga hore gelinka hore masjidka ku ictikaaf gelinkaa hore haddaad awoodi weyso xataa gelinka dambe casirka ilaa maqhribka intaa bal nafta ku xabis nafta waxay jeceshahay dhalanteedka iyo wixii ay baratay inay ku geyso tiraaho iga bixi masjidka iga bixiye dadku meelaha ay ku shaahayaan meelaha maaragtaahay fadhi ku dirirku uu ka furan yahay oo meela yacnigu uu ka furan yahay ayay dooni naftu inay u degdegto naftaada la gal jihaad naftaada la hadal naftaada wacyigelin sii war naf yahay xaggee ii wadaadhi masjidka haddaad iga bixiso oo khayrkaad iga bixiso meel masjidkan la mida ma ii wadaa ama u dhow ama la mustawo noqon karaa ma ii geyni xaggee ii wadaa su-aal weydii nafta intaysan ku bixin laakiin sidii xoolaha isaga soconin adigoon xisaabtamin adigoo naftaada la xisaabtamin naftu markii qalbiga kaaga soo dhacdo masjidka ka bax haye haddana waad iska baxday war xaggee u socotaa nafta ma dhihin xaggee ii wadaa su-aal naftii ma aadan weydiin wuxuu dhihi jiray moxamed ibnu lmunkadir sayidu taabiciin fii casrihi wuxuu dhihi jiray kaabadtu nafsii 40 sana xata istaqaamat wuxuu yidhi nafsadayda waxaan su-aal ku waday su-aal iyo dadaal waxaan nafsadayda ku waday uu dhihi jiray moxamed ibnu lmunkadir waa dadkii taabiciinta ay saxaabada nabiga soo gaaray sala allahu calayh wasalam 40 sano ayaan su-aal la daba taagnaayo xaggee u socotaa maxaad samayn maxaad ku hadli maxaad dhihi doontaa tilaabtani maxaad ula jeedaa 40 sanaan su-aal ku waday xata istaqaamat ilaa wuxuu yidhi markii dambe ay waddadii ilaahay ay ku toostay naftii su-aalihii aan ka joojiyey 40 sano ka bacdi rabbaayaday noqotay naftii iyadaaba dhahaysa yidhi masjidka igee iyadaaba qur-aankii ku raaxaysanaysa iyadaaba tahajudkii iyo qiyaamuleylkii balwad ka dhigatay oo cishqiba uu ka hayaayo jacayl marka nafsadaada dadaal la gal ilaa rabbaayad ay ka noqoto cibaadadiiba ay ku noqoto balwadda ay ka hesho sida dadka xuxunka ah shaydaanku uu ku maaweelinayo filimada markay fiirsanayaan ay ka helayaan shaydaanku uga furayo raaxo dhalanteeda oon jirin uu ku maaweelinayaa been ah ayuu ku maaweelin sida markay filimka fiirsanayaan saacadda ay joogaanba aysan garanaynba ay ku marqaamayaan nafsadaada ku tarbiya in cibaadada ay ku marqaanto waxaadna marqaanka cibaadada nafsadaada uga heli kartaa in as'ilo aad la daba taagnaatid su-aalo aad la daba taagnaatid mar walbaba war haye xalay maxaad qabatay naftii xalay maxaad qabatay imise saacad soo toostay xalay maantay marka aad intaad maraysay waddooyinka aad maraysay imisa ayaa indhahaagu ku dhaceen oo xaaraan ah imisa haweeney ajnebi ka ahee qaawan ishu ay kaaga dhacday imisaad been sheegtay imise qofoo dad muslimiin oo hod xamatay diiwaanka qor intaan lagu xisaabin oo qabriga aan lagugu xisaabin adigu isxisaabi inta aan lagu xisaabin lidaalika marka waxaa loo baahan yahay mar walbaba 10kan ugu dambeeya waa gebagabadii ramadaan hadduu dhashay hadday ahayd markaan cirka fiirinaynay haddana waxaan ka hadlaynaa waa gebagabaan haddana lena saasuu cumrigaaguna u dhammaan waa dhalanteed saacadaha adduunyadu waa saacado dhalanteed ah ramadaan hadduu dhashay haddana waa dhammaaday waka marka ciddii ka faa'iidaysatana way ka faa'iidaysatay ciddii aan ka faa'iidaysan iyo ciddii ka faa'iidaysana bishu isku si ayay u socotaa isku sii u dul marta kii aan soomin kii aan ka faa'iidaysan kii dembiyada iyo fisqiga iyo foolxumada nafsadiisu ay u qurxisay ramadaankii uu ka dhammaaday isagoo fisqigii dhex taagan kii ramadaanka ka faa'iidaystay ee habeenkii oo dhan soo jeeday oo qur-aanka maalintii akhrinayay oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanayay isagana ramadaanka uu ka dhammaaday isagoo siyaadsaday ajir iyo khayr iyo barakaad maxaa iska beddelay qofka ramadaanka ka faa'iidaystay ilaa inuu horumar gaaray mooye bal u fiiri qofka masoomaha ah wejigaaga iyo qofka ramadaanka ka faa'iidaystay bal labada weji isdhinac dhig bal xataa nuurka iyo khayrka waxaa kaa qurux badan qofka ramadaanka ka faa'iidaystay bal intaan aakhire iyo qabri la gaarin aakhire iyo qabri intaan la gaarin waxa kaa qurux badan oo wejigiisa uu kaa nuurahaya oo labiskiisa uu kaa qurxoonaya oo kaa nadaafad badan qofka cibaadaysanaya oo ilaahay albaabkiisa taagan subxaanahu wa tacaala ayaa kaa wanaagsan maxaa ka nusqaamay qofka ramadaanka ka faa'iidaystay ma sumcaddiisii yaa nusqaantay ma labiskiisii yaa nusqaamay maxaa nusqaamay bal horumaruu gaaray mid adduunyo iyo mid aakhiraba waa kaa tegey mid adduunyo mid aakhiraba uu kaa horumaray
adiguna darbigii un baad fadhisaa bishu markay dhalanaysay darbigii aad fadhisay ayaa markii bishu dhammaatana derbigii un baad fadhisaa maqaayadii aad weli fadhisaa qunfulkii shaydaanku uu kugu xiray qunfulkiyaa kugu xiran shabaqii uu kugu dhex ritay shabaqiyaa weli ku dhex jirtaa لأنه وحوي هناك توجيهان إما توجيه رباني وإما توجيه شيطاني لبا وعدي باجرته وعدي إلهي قف قاتي إيا وعدي الشيطان كقف قاتي قف سد حادنا مجرى مركا اللهوغا إيا ما لا يعني دنبغا أتكون حجرته وقا وحا كوغو سعودا قوجوين وعدي الشيطان كوغو سعودا kudhahaya ku qurxinayo kudhahaya waa horumar waa casri la gaaray dhalinyaradu sidan ay samaysaa sidana adduunyadu u dhaqantaa sidan ku soco ha ka soo laabanin wahaakada casharra kugu socda casharra iyo duruus shaydaana kugu socota markaad masjidkan ku jirtid oo nafsadaadii aad quraanka iyo tasbiixda iyo qiyaamuleylka iyo tahajjudka naftaada aad ku xabisaysidna waxaad ogaataa casharro rabbaaniya kugu socda casharro rabbiya kugu socda goojooyin nuuraha ku dhibcaya iimaankaaga oodan arkaynin iimaankaagii waxaa ku dhibcaya intaasoo goojo oo nuur ah ayaa iimaankaagii ku dhibcaya oo ku siyaadaya labadaa tawjiiha adduunka ka furan tawjiih rabbaani iyo tawjiih shayطaani labadaa xisbiya adduunka ka furan xisbullaahi wa xisbu shayطaan xisbi saddexaadna mama jiro imaa inaad ka mid noqoto xisbiga ilaahay oo ilaahay albaabkiisa taagan oo ilaahay mar walbaba gacmaha u taagayo oo ilaahay weydiisanaya ridihiisa iyo jannadiisa imaa inaad ka mid noqoto xisbiga shaydaanka oo taagan meelaha munkarka maalayacniga iyo turubka iyo laadhuuga iyo shaxda lagu cayaarayo filimada fisqiga ah ee qaaqaawan lagu fiirsanayo labadaa xisbi un baa jirto ku dadaal nafsadaada inaad ka soo go'do xisbiga shaydaanka ku dadaal inaad ka mid noqoto xisbiga ilaahay inaad ka mid noqoto ku dadaal waxaan kaloon mar walbaba aan isku baraarujinaynaa sida sheekhu inoo sheegayey in mar walbaba zakaatulfidriga in laga faa'iidaysto zakaatulfidri nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii ibnu maajah uu sunankiisa ku warinayey ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas farada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam zakaata alfidri min ramadaan duhratan lisaa'im min allagwi والرفث وضعمة للمساكين ويري النبي صلى الله عليه وسلم ويري عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر حكمة لو واجب يالي وحول qofkii soomanaa in lagu nadiifiyo waxyaalihii khalalkii iyo nusqaantii ramadaan uga dhex dhacday iyo gefkii bisha barakaysan dhexdeeda ka dhacay ayaa looga nadiifinaya waa nadiifintii ugu dambaysay waxaa laga yaabaa adigoo sooman mar inaad been sheegtay waxaa laga yaabaa adigoo sooman qof inaad xamatay waxaa laga yaabaa adigoo sooman in brobaganda aad samaysay waxuun inay kaa dhecdhaceen ilaa qofka bini aadamku macsuun maaha waxuun baa ka dhacaya haba yaraadaan waxaa kaa dhacdhacaya ayaa sakaatulfidriga lagu dahiray oo lagu nadiifinayo wa ducmatan lilmasaakiin masaakiintana waxay u tahay quud iyo farxadgelin masaakiintana waxay u tahay quud iyo farxadgelin xadiiskii bayhaqi uu sunan اlkubraa ku warinayey ayaa nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi aqnuuhum can الطalb wa fii riwaayatin aqnuuhum can الsu'aal fii daka اlyowm masaakiinta ka kaafiya wareegga ay wareegayaan maalinta ciidda wareegga ay wareegayaan ka nasiya uu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam maxaa looga nasin karaa in gacmaha loo furo masaakiinta jeebabka loo furo akoonnada in loo furo oo maalinta laga nasiyo wareegga iyo albaabada ay garaacayaan oo sakaatulfidri yacni la siiyo sida sheekhu inoo sheegayana qofkii ku dari kara labis iyo maaragtaahay kiswatulciid ku dari kara oo dharka ciidda inuu uga farxiyo dadka deriska ah waxba haysanin dadka masaakiinta ah oo carruurtoodii aan ka farxiyi karin inaad adigu ka farxiso farxadda qofka muuminka ah ee faqiirka qalbigiisa aad gelinayso ilaahay waa kugu dembi dhaafaya ilaahayna waa kugu dallacsinaya subxaanahu wa tacaala lidaalika dhammaanteen ilaahay ha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta bisha ramadaan ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عباد الله الفائزين المقبولين المعتوقين من النار المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا